xisbullah ayaa la soo baxday maalmihii lasoo dhaafay diyaarad daroonis ah oo farsamo la yaab leh laga soo sameeyey mar waxay leeyihiin israa'iiliyiinta laa silki waayo macnaha wax ay ku xiriirsan tahay ma leh GPRS kuma shaqayso fiber may ku shaqaysaa raadaaradu ma arkayaan haddii la arkana waxay noqon gantaal malaayiin jooga in lagu dhufto iyaduna xataa $1,000 wax ka badan ma joogto sidee la yeelayaa buuqaasa Israa'iil gudaheeda ka socda haddaba marka diyaaradan maxay samaysay oo ka yaabisay Israa'iil waxa ay weeraro cirka ku qaadaa meel kasta way duqaysaa diyaarada casri ah wadataa nimankan iyagu diyaarado dagaal ma soo qaadan karaan farsamo waxaa lala soo baxay diyaaradahan yaryar taangiyadii way uga harsadeen ebery ka dhigeen taangiga waa dul imaanee nagti ka saareen raadaarada iyo qalabkan kalena wax qabanaa lama arko marka waxaa lagu leeyahay nimankii yahuudda ahaa ciidankoodii taangiyadoodii saldhigyadoodii maalmihii lasoo dhaafay dukum daakuma laga dhigo diyaaradahan daroonkaa eber ka dhigaa lagu leeyahay haddii qalabka uu wax sheegi lahaa raadaarkiina ma sheegayo halkii mar uu sheegana waxay noqon gantaal malaayiin $, in lagu weeraro tii ugu xumayda marka koonfurta Lubnaan ka taagan waa dhibaatadii ugu weyneed Israa'iil abid soo martaalle yaa isgaareedeen xisbullah leysma gaarineen adikoo ordaaye dhulkan aad joogtaan koonfurta Lubnaan ka carari doontaan sidii markii horeba uga cararteen marka sheekadaasi aad ay cajiib u tahay dabaan idin soo dhowr bixinood oo laga qoray Al Jazeera waxay leedahay waxyaabo la yaab leh ayaa la kulmay waxaana la sheegay in diyaaradaha daroonka xisbullah ay ka tallaabeen oo ay markaa ka qarsoomeen oo ay arki waayeen raadaarada Israa'iil ee diyaaradaha sheega haddaba warbixinadii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dhinaca hawada dhinaca darooniska ciidanka Israa'iil cagta lagu mariyay oo ciidankoodu ay la kulmeen dharbaaxooyin xoog leh oo kaga yimid dhanka waxa lagu tilmaamay kaabuus mufaaji argagax lala yaabay oo weliba aan la filayn ayaa ku dhacay ciidankii meel kasta looga yimid jugta laga geliyay dhagaha laga garaacay haddaba marka khasaaraha ay geysatay diyaaradan saacadihii la soo dhaafay haddaan idin la wadaago ciidanka Israa'iil waxay sheegeen 12 kamida askartoodu in ay ku dhaawacmeen qarax ay sababtay diyaarad daroona oo la yiraahdo Shomera oo ah diyaaradda ka yaabsatay ciidankan waxaana la sheegay ciidamadan in diyaaradaasi ay ku qaraxday sidoo kale waxaa la sheegay inay diyaaradaasu ay ku dhacday ciidankaas taangi ay la socdeen oo markaa dhanka jaliilka galbeed marayay saakay ayaa markaa dhibaatadaas soo gaartay 12 waliba waxa leeyahay hadda midaa dhintaa la sheegay war degdeg hadda arkay inay kuwan ku jiraan iyo kuwa cusub inay yihiin ma garanayo marka barnaamijku soo galaysaa loo sheegtay in askari ka dhintay waliba 19 jir dhalinyaro la sheegay marka hawshaas halkaas iyaduna maraysa dhanka kale waxa la sheegayaa iyaguna xisbullah inay war soo saareen goor dhaweyd haddaba xisbullah waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen 2 taangi oo nooca la yiraahdo Merkava waxaana la sheegay inay ku weerareen deegaanka la yiraahdo Bintu Jabil haddaba waxaa la sheegay in lagu weeraray 2 taangi 2 diyaaradood oo daroon ah inay markaa ku weerareen koonfurta Lubnaan waxayna sheegeen in ay khasaaro xoog leh taangiyada u geysteen halkaas lagu qarnamsaday maba u baahnaba askari inta gantaal soo qaata garabka soo saarta la soo dhuunta meel la soo maradha ma loo baahnaba godkiisa asagoo ku jira diyaaradda basuu soo daydaa wiisha u leedahay taangiga dul tagaysa nagti ka saaraysaa arrintaas waa arrin yaab leh haddana diyaaradda waa diyaarad casriya la leeyahay oo ka yaabsatay waxay u bixisay Al Jazeera kaabuus mufaaji la yiraahdaa kaabuusku waa wax lala yaabay waay oo haddana aan la filayn markay ku yimaadaan wax ka yaabsanaya oo haddana aad filayn waqtiga ay ku alla kulmaysid waa wax cajiib waay marka
gantaalahaas iyo diyaaradahaas ayaa soo kordhay diyaaraddaas ayaa soo korortay daroonka dhanka kale ninkii Trump ahaa ayaa war wuxuu ka soo saaray arrinta Iiraan haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay afhayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxay sheegtay haweeneyda in marka ninka la yiraahdo Trump uu dhan walba u furan yahay wixii uu ka yeeli lahaa Iiraan macnaha khiyaaraad kasto haysta khiyaar kasta hadduu rabo wuxuu ku sii haynayaa cunaqabatayntan oo dekadaha uu ka saaray haddii kale wuxuu samaynayaa wuu weerarayaa kullu khiyaaraad macnaha ninkan wuxuu rabo samayn karaa waa kibirsan yahay hadduu kibirsan yahay ma furo meeshan marbiyoodka Hormuz taas ma furo hadda waxaan ugu leeyahay wuxuu wadaa dadaal ay wado wasaaradda arrimaha dibadda iyo midda gaashaandhigga iyo dawladaha la qasbaya waa la qasba markii hore waxay ahayd war ma nagala qayb galaysin furitaanka Hormuz isbahaysiya sameynayna ciidan iyo maraakiib ma soo diraysaan hadda muxuu maraa waa inaan raacdaa haddii kale Iiraan la jirtaa aniga ama meel kale jirtaa way wax kale oo ka dhaxay male haddaba markaan idin tuso warbixintan iyadana cajiibka goordhow la soo saaray telefishinka CNN ee dalka Mareykanka ayaa wuxuu leeyahay waxa cadaadis saaraysa maamulka Trump wuxuu cadaadis saarayaa xukuumadaha caalamka si ay ugu soo biiraan isbahaysiga cusub ee loogu magac daray taageerada xurriyadda maritaanka Hormuz waa qasab uu leeyahay CNN ka wuxuu leeyahay waa qasab maalmii hore maxay ahayd war ma nagala soo qayb hadda xoog ma igu raace ma i raace waay marka maxaa kullu khiyaaraadka marka maxay khiyaar kastaan haystaa maxay tahay marka hadaba waxa rabto weerari kartid waxa rabto sabay kartid maxaa dawladahan u soo lugoynay masaakiinta u dhibaysa marka dawladaha uu soo qasbi karo yaa kamid ah leey wuxuu qasbayaa Yurub inay raacdaan waayo leey Faransiiska Ingiriiska Jarmalka dadkaas uu soo wadalaya marka inay ka yeeli doonaan iyo kale marka lama yaqaano hadaba marka qaybahan intan ayaa ku joojinayna waxaan u gudbi doonaa qaybtii wararka soo kordhay intaanu barnaamijka ku jirnay xayisiinta qaybtaanu ku soo qaadano intaanu ku jirnay barnaamijka wixii akhbaarada ee soo dhacay soo kordhay haddaba aan idin tuso telefishinka Al Jazeera waxay leedahay generaalka la yiraahdo Kiin wuxuu sheegay Iiraan inay wali haysato doomo yar oo aad u dheereeya oo khatar badan abaanduulaha ciidamada Mareykanka ninka la yiraahdo Dan Kiin wuxuu leeyahay Iiraan waxay haysataa doomo dheereeya oo halis badan wax kastaana laga filan karaa u leeyahay doomahan waxa waaye doomii loo bixiyo waaye maxay kaneecada badda waaye abaanduulihii runtuu arkaad wuxuu leeyahay nimankan dooma ay haystaan markabka say u soo socoto dabada leeba ka soo galay kaneecada caadi ba kaneeco marka loo bixinay kaneecada badda Hormuz u bixiyay ayadoo dhigta ka soo gasha arkay markabka weyn inta ka soo galaan nagta ka saadana waxay wataan baala qatar wataan hub waxa ka dhacay cajiiba marka ninkan waa ka qayliyay marka wuxuu leeyahay maraakiibtu waa loo baqaawlay amarada badan oo Trump iska soo daba saaraysa la goodo maraakiibta lagu dhaweeyada ayuu fariin u diray wuxuu leeyahay nimanku alaab halis haystaan oo Trump hadday meesha wax ka dhacaan waa kaas waa nimanka maalmahan waa hanjabayeen waxay laayeen hadda maraakiibteena soo deyn weysan waxba arkaysaan marka wixii oo dhan marka meesha isku sasawaran haddaba wararkaas ayaanu ku soo qaadanay barnaamijkeeni saddexaad waan hubaa inaad ka hesheen barnaamijkii labaad oo aan aad uga hadalnay faahfaahin badanna ka bixinay warar ka soo kordhay nin Soomaaliya oo la sheegay inuu shalay toorey nagta kaga saaray yahuud ku nool magaalada London kaasoo magaciisii iyo wixiisoo dhan ay booliisku soo saareen barnaamijkii labaad ayaad ka heli doontaan oo aan soo gelinay galabta intaan markale kulmayno asxaabay nabadgelyo